sawirkan maanta baraha bulshada ayuu qabsaday waa madaxweynaha Soomaaliya oo sanka wax loo saarayo ninka waa sixran yahay ninka waa la sixray sida ka muuqato way abi muddo dheer buu la meereysanay ula hal mar ila kaluusiya Xasan jaanis buu ku helay sawirka kale waa kii xalay soo baxay abi fiiri hoos ka qoslaya Xasanna waa artan suuq madulursan yahay Erdogan baa dhex taagan qof kasta oo garanayo body language uu garan karaa meesha wax ka taagan ninkaas uu dareemi karaa waxa weeye markii ay kulmeen oo heshiiskii loo fariistay la kulansiiyay abi markii farta taagtay wuxuu yiri hal mid yani ka codsanaya madax banaanida iyo waxan dhan horto waa muqaddas xaq inoo dhiga ma badiidin murtaas laakiin hal mid iyo ogolaada waa halka mid ee nalagu dilay way marka halka mid ee nalagu dilay way koow wuxuu yiri aniga wuxuu yiri waxaan gacanta ku hayaa jiil dhowr milyan ah isla markaana aanan haysan marin biyood waxaan u baahanahay marin biyood inaan helo waa diyaar baa la yiri wuxuu sii raacay marka marin biyood aan maamulanayno si beecshirada anaga ama ganacsiga anagana meesha uu marayana amnigeeda anagaan u sugeyno oo wax dhiba og imaanaynin fiiri marka waxay ka dhigan tahay ka soo qaad in hada la siiyo sayla ilaa Oromiya inta u dhaxayso inay amniga iyaga ay sugayaan oo ay joogayaan oo meesha iyada ah cid ku farigelin karta aysan jirin maxaa laga cararay marka Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ka cararayay oo uu diidanaa sideebuu Musabbixi oo maamul xukuumaya oo aniga mata idul mari kara Ethiopia heshiiskii ay la gashay Somaliland inuu meel gaarin way ogeed Somaliland way ogeed labadu way ogaayeen inaysan meel gaarin ninkaas waa ogaa laakiin Ethiopia waxay rabtay si ay ku cadaadisay Xasan say u hesho meel wayna heshay maanta badna wuu siiyay barina wuu siiyay labadii isku daray bila shuruud buu ku siiyay Xasan waxyaabo soo baxayo aan maqlay waxa kamid ah Turkiga wuxuu u sheegay uu ku yiri war waxa Soomaaliya ka soo socdo waxaan caadi ahayn baaritaanka badda aan ka wadnay wax waaweyn baa soo baxay Soomaaliya qayb noqonaysa adigana boqor baad noqonaysa Ethiopia iyo anaga meesha kugu heenayno saadalada marka shidaalka ay waxan baad maamulanaysa marin biyoodka asirkana Ethiopia ma taqaanay iska sii wixii kan anna kula habeenayno oday waxa la geliyay marka buurtaas la saaray sixirkana u dhiri markii taa laga soo dhaadhicay kadib marka sixirka Xasan loo keenay ee sanka loo saaray waayo Musabbixi isagoo caadi ah buu mataanay Soomaaliya ka tagay buu arsaba tagay ninkii uu salaamay wax ka damay abaagadhayaal iyo soo dhaw dul buraanburayo oo saar lagu dul waxanayo oo caleemo qoyn afka la gelinayo ma aragnay Xasan waa kana sababta sanka wax loo saaray ma taqaanay hurdaba seexday aad moodo ma taqaanay in drugs sanka loo saaray boqonaha lis ala shanaya xaalad adag ba taagan hadii aad ogeedeen lagu eedeynay muddo dheer Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame madaxweynaha soo socda ee Soomaaliya hadii muddo dheer lagu eedeynay eed aan waxba ka jirin ee badda iibisay Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda uu hogaaminay Xamza Cabdi Barre waxay iibiyeen baddi iyo barri xitaa haday iibiyaan oo xitaa shirmaadka keenan waxa ma ahan way hibeeyeen hibay Ethiopia u siiyeen Ethiopia waa mala ku dhig dhulkan ogaadeen la yiraahdo xilligii gumeystaha iyo isku yeeray dadka deganaa wuxuu yiri dhageysta 5 sano ama 7 sano meelaas ahayd wuxuu yiri siiya aan sii joog animation aan idin maamulo hadii kale aan ahayn ani Ethiopia u xisha inaan hadda intaan idinka dhaxbaxo Ethiopia ku dhiibo waxay Ethiopia noo dhib
وحصو قاضي مرو قعد بصو قاضي أو شال وحكو توري حنان يكون أحتوري وكسو جيدي وكل دقي حنكي مركب والله يوحدون هابو يسيبت وحيري وطا إتوبيو تكالو قاضي لكو كتوري وهرقفي أنا وكاسو ده مركب وارتنو دي بين أنا قطع ما نقناي سكرا فاتي وحسن ما حكا داعي مركب واحد تاجن إلى يمانتا وي إتوبيا iyo ogaadeen waxay mataan dirirayeen muddo ku dhawaad 50 sano ay dirirayeen horta 35 sano ku dhawaad horta xabadda socotay ka bilow xilliga iyada ah 40 wax bay ahayd ilaa 2018 markii la heshiiyay inta baash way socotay hadda marka waxa weeye Xasan Sheekh Maxamuud Itoobiya lagu dhiibay laakiin baashu waxa weeye waxay ku xiran tahay haddana dhulka laga siinayo ee dadka jooga ku xiran Soomaaliya xasku ma aha laakiin tag dhulka laga siinayo iyo cid iska leh cidda ambay dhibaato kortaala hadii maanta sayra ilaaka laga siiyo tinamka Ciisaha iyo Samaroonka ayaa garanaysa waxay ka sameyn lahaayeen hadii ilaaka berberaha laga siiyana tinamka hawar awal Isaaq bay u taala hadii la yiraahdo kan iyo hobya la soo aadina tinamka habar gidir bay u taala inkastoo habar gidir siyaasadda laga saarayba oo maanta ciid habar gidir oo xil haysaba uu fiqi ka soo harayba siyaasadda caadi baa looga saaray hada sheekh wuu ogaa nimanka habar gidir ay niman dhib badan yihiin oo ma taqaanay xaganay ku dhagay hal mar buu siyaasadda maanta ka siibay muruq banaanka baraka shacabkoodina muqdisho wax alli meesha ku jira barakacii marka hadduu ka siinayana ayaga u taala haddii intii baraawi iyo halka ula soo aadana dee nimanka raxaweyn iyo habar geerta birahaas ku haystay iyo idan u taala si aysan kicinayaan meel kaloo laga siiyo kuli ani ma arko kismaayana mataqaanaa uma dhawooba way ka fog tahay mana ka siin kara xasan wuu ogyahay oo wixii 10 shan loo dhigay buu ogaa marka Itoobiyana danta ay kaleed waxa weeye abi wuxuu u socdo waxa weeye meel u dhow Oromiya inuu u helo asaanka wuxuu qoodanayo ku sheegayo Itoobiya weyn ma waa Oromiya gobolkan Oromada uu meel u helo uu doonaya taas uu hiraya marka ala kulli xaal Xasan Sheekh badi bari iyo dad intii waa bixiyay ciidamada matan waa baabi'iyay xalka ma taqaanay ma sahlano kulli waa ka doona insha Allah meesha xal uu ku biishubto teendadana inuu ballan ah teendada la aadaya qof iyo codna way soo dhamaatay qof iyo qori bay noqotay kadibna la kala adkaa hadda waxay ku soo biishubatay Itoobiya Xasan bay ka adkaatay Jubbaland Xasan bay ka adkaatay de Xasan ki dhanaa qaranka noo matalay maanta waxa haboon inuu is asilo oo uu yiraahdo Soomaaliya wax ma hayn kare u tashada meel uu kala dhaca waa maasantiin